laba qof haddaan idhaahdo waxaan ninka wareegtaadka leedahay iyo diqadan qarab labaasan yacni wakaadi maalmahanba waxaa lagu soo meeshin gareynayay arrintan ay qabanayaan guddida daljir oo ay doonayaan inay abaalmarin guddoonsiiyaan dadyowga qarannimada Soomaaliland ka difaaca baraha bulshada ee kaalinta koobaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad ka jira shalay waxaan arkay Horyaal TV oo arrinta ka soo hadlay dadyow fara badan oo arrinta hadalaya arkay arrintaas shakhsiga baraha bulshada kaalinta koobaad anigu aan oran lahaa hal la siiyo qadiyada Soomaaliland ayaan aragtidayda ka dhiibanaya waxaan doonayaa guddida daljir in muuqaalka laga gaarsiiyo qodhi iyo xirada laga gaarsiiyo qodha iyo xirada muuqaalka sheer gare horta qodobka waa soo qaadanaya qodobka labaad aan doonaya in istul taaga waxay tahay oo waliba aad ula yaabay shakhsi ka reer Soomaaliland hal su'aal isweydii ciidanka qaranka Soomaaliland wixii nagu dhacay markaad eegto iyo waxbihiina soo gaaray ma kula tahay in ciidanka qaranka Soomaaliland niman basaasiin ay ka mid yihiin oo wararkeena iyo xogteena u gudbiyo huwanta ha arrintaas way igu mudnay laakiin saarta waxa ay marxaati furay oo qalinka iyo ciidamada iyo garaadka igu duugay garaad Sofe waa ku ognahay baabuurta dekada kuugu jirtaan ognahay rasaasta aad oo keentay baan ognahay tababarayaasha aad keentay baan ognahay dad badan baa nala shaqeeya ciidankay ku dhex jiraan ciidankaagay ku dhex jiraan halka ay jooji garaad Sofe oo kamid ah garaadada yaa huwanta ee argagixisada ah waxa uu yiri ciidanka Soomaaliland waxa kamid ah niman xogta noo soo gudbiya taaka oo ciidankiina kamid ah hadaba su'aal isweydii ciidankaas ay noqon karaan ya waa ciidamada maalmo yiraahdo waan soo goosnay idinkaan nagu soo beernay weeyaan maalin dhexdaasana waxbaan inii saray laakiin ima saafin ya qodobkaas waan isku taagay muuqaalka sheer garee arrinta saddexaad aan la yaabo waxay tahay alla sheega nacasnimada la yiraahdo xuma nin igu yiri siyaad barre maxkamad lama soo taagi karo nin igu yiri shalti golaha sare ee dawladda siyaad barre maxkamad lama soo taagi karo nin igu yiri General Morgan oo gaal dhalaya oo wuxuu ka sameeyay gobolada waqooyi ama Soomaaliland ka sameeyay loo og yahay leh waa bilaadab igu leh sidoo kalena igu leh ninka tukan la yiraahdo ee Mareykanka ku xiran waa bilaadab igu leh ayaa maanta wuxuu leeyahay ya baa ila dhageyso nimankii dambiyada dagaalka ka geystay Lascaanood kayskoodii waa la gudbiyay maxkamadda dambiyada dagaalka loo gudbiyay qodobkaasna waxbaan ku oranaya isagana waa ka duliikinaya qodobka saddex qodobka kale ee aan aad ugu qoslay hada jeer waxa aragtaa daraawish hore nin markaa ma qajilaan mar waxay ku oranayaan waan ku xoreynay ingiriis baan ka eelinay hadii aan ku xoreyn lahayn macata baa ku xidhnaan lahaa anaga ku xoreynay micnaha anaga ku xoreynay micnaha ma taqaana ingiriiska anaga ka adkaanay wadanka anaga ka saarnay taamicleedu maaha in isaga laga adkaaday maaha baladiga garaadka kale dhigis haddii kale sidaynu daraawiish dhibkii la inoo geystay aynu u ilawnay baynu tanna u ilaawi doonaa wakaadi wuxuu ku leeyahay garaad jaamac ninkii ban mar walba inagu oran jiray annaga gobolada waqooyi xoreynay Soomaaliland annaga xoreynay Islaam annaga xoreynay Ingiriiska annaga ninkii oran jiray wuxuu yiri yeena dhibaatadii la sacaan soo gaadhay dhibaatadii nagu dhacday yeena u ilaawin sidii aynu hadda ka hor u ilawnay dhibaatadii noo geystay bariga daraawiish oo dhibaatada lagu geystay bariga daraawish maxay tahay sadigii nagu lahaa waan ku xoreynay maaha maadaama lagu dhibaateeyay nin dhibaato loo geystay oo laga adkaaday oo wadankii laga saarsiday bariga xoreey wallahi raka muuqaalka iga sheer garee meel fog gaarsiin qodobadaas oo dhan baan isku taagayaa inooda sheer garee haddaan ku soo noqdo arrintan abaalmarintan daljir ay bixinayso waxaa jira dadyo fara badan oo reer Soomaaliland oo qadiyada Soomaaliland difaaca oo af iyo adan iyo gacan ba ku difaaca wax walba ka qabta oo baraha bulshada ka muuqda oo qadiyadu ay ka dhabtahay laakiin marka tartan la qabanayo dadku kaalmaha wada koobaad ma wada galaan wad ka garan ka dhaatay ya sida iskuulka kale buundooyin baa la yeeshaa Soomaa aniga aragtidayda muuqaalka iga gaarsiiyay guddida aragtidayda leeyahay ayaan waxa ka dhibanay waxaan leeyahay guddida waxaan leeyahay
shakhsiga qadiyadda somalilan u ololeeya kaalinta koobaad aad siinaysaan ha ahaado ninka xuseen la yidhaahdo ha ahaado ilmaada reer xitaa haddaydinaan kaalinta koobaad siinayn talabaad hala dhaafina kaalinta koobaad baan la rabaa anigu qodh iyo xerada iyo xiliintii weliba waxaan leeyahay kaalinta koobaad beesha dhexe hala dhaafiyo beesha samaroon weliba ninkaas samaroon kaalinta koobaad hala siiyo anigu arrintaas ayaa soo jeedinaya ya waayo ninkan waa nin dee qadiyaddu ay ka dhab tahay ya qadiyaddu ay ka dhab tahay wey way ka muuqataa maaha dadka labaclabaleeyay maa noolaya somaliland ha noolaato maalna calanka soomaaliya qaadanayo soomaaligay taas adduunka waxaan ugu necbay qof bilaa go-aana oo maalinba cid ammaanaya adduunka kaasaan ugu necbay lama tuso kaa ya meeshaan wallaahi faaniga maaha meeshaan ku dhego waan la arooraa ee kama fuqaanu ya go-aankayguna waa birlab sax birlab may garatay cay aflagaado iyo xumaan dadkayga reer somaliland qaar ka mid a igaga timaadaa qadiyadda somaliland anigu uguma talaasulo qaar baa igu sheegay heego qaar baa igu sheegay xisbiga waddan igu sheegaa qaar baa saddex xisbi igu kala shaambadeeya uma joojiyo waan eega waa dhaafaa like ta xun baan ugu jiidaa waayo hamigii aan xabaarsanay baa ka weyn waxaa nin kale hawada kama sheekeeyaan anigu waxaan leeyahay guddidaa daljir mawduuca ku dheeran maaye mawduucyo kala yaale guddidaa daljir waxaan leeyahay ninka kaalinta koobaad siiya kaalinta labaadna qadanqaran siiya walaashay qadanqaran ya saas u dhaafiya weliba hadday dinaa kaalinta koobaad ninkaas kaalinta labaad hala dhaafina kaalinta koobaad baan gula rabaa beesha dhexe kaalinta labaad dhaafiya taas ayaan ku talle kasoo gudub arrin baan imnaada reer la yaab arrin baan la yaab wata arrinta ninka garaadsof arrinta garaadsof uu ka dhawaajiyay maarta intaanan isdul taagin wax yar baan ku fahansiinaya eeg miyuu jiraa eeg tusaale ahaan markaad eegto meel yar baan kaa tusayaa qalbigaaga iyo maskaxdaada tuujinayaa weliba ciidanka qaranka somaliland naga gaarsiiya muuqaalka dadyoga maarata huwa taliya kasoo goosanay iyo dadyoga inaga naga goosanaya huwta ku biiraya goosashadooda waxaa ku cadaynaysa kooda run sheegaya kooda been sheegaya waxaad ku gargaraysa ma taqaanaa ka inaga naga goostaa hub waaweyn buu inagala goostaa technica waaweyn buu inagala tagaa hub waaweyn buu inagala tagaa taa micnaheedu waxay tahay goosashada inaga uu naga goostay waa mid xaqiiqo ah awal horena arrintaa dhab kamay ahayn ee meesha ujeedda ayuu joogay qodobkaa waad iga haysaa midda labaad aan kugu daray waxay tahay dadyoga iyaga le waa ka soo goosanay maarata hub ma sitaan hubka ugu waaweyn ay sitaan waa akee maalmo dhawo mid baa loogu qaato hal tikniko ah oo bilaa qoriya oo aan dhacay bay watiin sida lay sheegay hub caadi ma soo qaataan waayo xagga inay wax kala tagaan ma rabaan xaggeedu inay wax kasii jiitaan marka garaadsofe dadkan uu leeyahay ciidanka qaranka somaliland bay noogu jiraan oo warkay noo soo gudbiyaan waa dadka iyaga ka yimaada iyaga kasoo goostay inaga lana kusoo dhex dara weeyaan ila dhegeyso dad badan baa nala shaqeeya ciidankay ku dhex jiraan ciidankaagay ku dhex jiraan xabad kastoo kuu timaada waa ognahay u kaadi qof kastoo caqli leh wuu fahmaya qof kastoo maskax leh wuu fahmaya ya xitaa basaasnimadii ka dhacday ciidanka maraaga waa tilowgaa tii goojaada ka dhacda weeye tii ateenada lagu jiray waa tilowgaa tii maganaysa gaarigii ambalaastii sitay waa tii la ogaa eeg waxyaalahaas oo marka saa u tuutuujiso oo aad ku soo duubto waxaad fahmaysaa meeshan in ateena taagan tahay dadyo ciidanka qaranka somaliland ka tirsan ba ateena ah oo iyaga ateena u ah waa xaqiiq wey taas horeba iyadoo taas shakigaas u jiray garaadkan isagaa kuu caday wuxuu ku yiri ciidanka qaranka somaliland niman baa noogu jiray buu ku yiri nimankaas iyay noqon karaan waa nimanka iyaga kasoo goosta ku noqon maayo mid kale waa niisi jircinaya qof laga shakiyo qof kale kala jiray hadallada qaar ee nacsiba iska ilaaliya ninka ina cabaasho la yiraahdo kumanaan reer saxaaqa ayuu ka daacadsan yahay oo waliba anigu aan kaga korsoonay kaasi waa lama taabtaan ya laakiin saddeeyago iska garkan waxaan leeyahay ninka hala ka soo goosto huwanta ee anaga nagu soo biirsay ciidan baan ahayo waa inaad isu diyaarisaa
inaan jiida kale aan ku goyno dhanka galbeedka xuduudaha galbeedka ku goyno no halkaas ayaa tagaysa halka masirbaad ka gudbin kartaa maxaad ku haysaaba ku dhex waalan kuleen haddii aad soo qaadanaya madaxa laga toganaya na waa lagu dhufanaya taasaan ku dhaafaya arinta labaadaan la yaabay soo ninkan waxaan moodaa inuu lugta kaliya laangare ka yahay soo maskaxdana laangare ka yahay ninka igu yidhi tuke maxkamad la soo saari maayo ee guuladooda ilaahay waa bilaa dambi ninka igu yidhi Morgan maxkamad laba soo saaraya ilaahay waa bilaa dambi ninka igu lahaa siyaad bar dambi ma gelin ee dawlad buu ahaa dad qaradul sula dagaalmay igu lahaa yah maanta wuxuu ina leeyahay nimanka u naxariisanayay ee maalin walba la soo weerarayo istifaaciyay oo kaliya ayaa maxkamad la soo saarayay kulay nimankii dambiyada dagaalka ka geystay Laascaanood kayskoodii waa la gudbiyay maxkamadda dambiyada dagaalka loo gudbiyay waana la aqbalay oo waa la sabadgareeyay kayskoodii u kaadi aw firdhiyo waxaan magacaaga waxaan ku ogaa lugu firdhiye soo maskax firdhiyaat maskaxdu waad firdhisa hataan isbarbardhigo Laascaanood wixii ka dhacay iyo wixii dawladda siyaad bar noo geysatay laba isu dhow maaha laba la isku martay kara ma munaafiqun baa taa sameeya tusaale yar haddaan ku siiyo walba anu markhaati kale ma haysto waxa markhaati ah garaad jaamac garaad cali markhaatigiisa war soo noqonaya dawladda siyaad bar maxay sameeyay iyadu may dhaafin caruur may dhaafin nin hubaysan in aan hubaysna may dhaafin awrta maarta iska daa ibn aadan iska daa awrta inta la qabto yah ayaa awrkiyo ay soo saaran tahay heeryadii maarta badaba la qabsani awrkiisa u ololaya bacararayba waliba ragga sameeyay anigu hadalka maanta waxba qarin maayo Soomaaliland xaq ayay saaxib runta dad isu sheegaya ragga sameeyay taas dhulbaanta ayahay ma igart war waxa ku ninka awr dhaaf way ololinayay min aadan u dhaaf tusaale labadan ku sinay waxay tahay diyaaradii ka duushay Hargeysa ayaa isla Hargeysa ka duushay garoonka Hargeysa bay Hargeysa duqeynaysa sidee bad Laascaanood la barbardhigi karaysa sidee bad olka Laascaanood dibata ka dhacday mid yar waana tacay aw firdhiyo maskax firdhiyo ya ragaygi afartan inta saal isugu xiray ya bab saalo ayaa dhishii ka saalo marinay aan su'aal yar ku weydiiyo ninkaaga dhulbaantay ilaa dhibaato ka dhacay dawlad bay gudbinaya ma jirtaa 20 3 nin oo dhulbaantay taxariir la saal maxbuusaan loo soo qabtay xabad xabad la dhacay ma jiraan no marana soo warsan saa liskiti difaaca mooyaane nin kale inta kama loo dalay gowda laga saaray ma jiradii war maantadii maxaastadii mid cid loo ma eegayo saaxib qaar ba kala saalo dubsii walo jiirsinay oo taayirka la marsinay eeg Laascaanood dagaalka ka dhacay markaad eegtad huwanta iyo ciidanka qaranka Soomaaliland tusaalihii ugu dambeeyay ku siinaya kaga baxay mawduuca 23kii August Soomaaliland 25 August maalintii ciidanka Soomaaliland ka soo baxeen goob tacdiin maraga Soomaaliland ee maxabiista qabateen maalinta laba cisho ka hor 23 August ciidanka Soomaaliland xageebay galeen xageebay joogeen ku su'aalaya intaad maraga soo weerteen bay soo eriyeen Laascaanood inaga soo daba galeen taalada shuhaadada waa kuwii tafiri waa kuwii wadikii yaacay waa tilay dib uga soo noqday ma ninka inta Kooriyada dib kaaga soo noqonayay baa ku xasuuqaya dhibaato ku geysanay وعنان لهيدا تماتا تدعوون سنة سمين ما توعنان لهيدا نفر ما تكامل كامل شغل Laascaanood والله بالله نفر هالتماتا تدعوون سنة سمين لها نفر Laascaanood كان شغل لا مشر وحكوري وين رفاقة واحد بكاح الشرطة شب ويونيو تعود لهيدا شب ويونيو كراتد أركي حسدها بتعود لك الدنيا نيو متكلموا ليش جاي حباها أمرين وأنا أسوي الرية وحاسب جتني والله سورية يمكن كنت تقال لولك يوحى وكافته مو كيل بحد تقال هو ده ما كنت شراء ركض على ربع وذا اللي جرينا عاصمة دي مقدوشان تماس تيجي لنا مقرنسة تولين ومصر صعد مع المهن ولا ما يقرأت أريت أقوس جناك ميس كي سارت أنا سوكر دقنو
ونسورنا هي تاسع صحيح يا موضوع تاسع كلها فيها waxaan aad la yaabay garaad laawe odayga garaad laawe niyo odaga waan u qajalay wuxuu wuxuu kanayaa annaga xornimada keenay Soomaali u keenayo horta taan hadalkiisa gurigeysin marta ya salahan nintuga gurigeyga ku soo weeraray gurigaas markuu ninki guriga markuu ku soo weeraray ninki gurigii waan ka saaray waan ka eriyay hadhow dad baan uga sheekeynaya waxaan leeyahay xalay tuubay soo waro gurigeyga xoog baan kaga saaray aan su'aal koodii marka ku leeyahay gurigeyga xoog baan kaga saaray taan maxay tahay ninkiina ka adkaaday ka eriyada meeshii aqalkayga ka xoreystay waa sidaadee haddii se aan idhaahdo ka waran ninka dhibaatooyin geystay ka waran taan waxa guriga baa laga eriyay weeyay sabah ninkii gulaha waxaan xornimo ninkan waxaan xoreeyay saaq waan xoreeyay samaraan baan xoreeyay ciisan xoreeyay waxa sameeyay garanaysa oo suran xoreeyo faqashini ma xoreeyo madibaan xoreeyo muslimiin xoreeyo laha ya wuxuu ku leeyahay dhibaatada la socod ka dhacday ilowno wuxuu leeyahay sidii bariga darawash dhibaatada ugu dhacday inuu ilowno kale yeena dhibaatada inuu ilow baladhiis haddii kale sidaynu daraawiish dhibkii la inoo geystay aynu u ilownay baynu tanna u ilaawi doonaa isku haya kala hayn kala daa waa ku xoreeyay iyo dhibaatadii daraawiish ugu dhacday yaan ilaawin sidii la eryaday yaan ilaawin sidii magalaysa tawdar laga saray yaan ilaawin adbad aqla leed caar yaan ilaawin mawduucyadaan kama helay